haweenka ku jira ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa dhiga dibadbax iga soo horjeedaan shir la sheegay in ay qaban qaabadiisu ay leedahay wasaaradda haweenka dowladda federaalka Soomaaliya ka oo lagu kala qaybinayo haweenka Soomaaliyeed bananbaxan ayaa waxa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka qayb galay kuwaasi oo sheegay in aad uga xun yihiin in wasaaradda haweenka ay xilligan ay kala qaybiso shirka haweenka loo qabanayo ee la leeyahay haweenka Soomaaliyeed ayaa shiraya oo ka tashanaya aayahooda ma xildhibaanada haweenka aha ma wasiirada haweenka aha aaway gabdhihii Soomaaliyeed ee u soo halgamay wadankan aaway gabdhihii ciidanka afka ugu guraaya cuntada maanta waxa la marayaa dadkii bulburuuf lagu waday ee baabuurka qunfulo lagu waday in la yiraahdo aayaha haweenka ka tashanaya ma dhici kartaa taas waxaan nahay gabdhihii markii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ee jumhuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha loogu dhawaaqayay oo la diiday gabdhihii jidkaan ku maray asayda cad ee yiri cod gacantaaga waa in lagu ansixiyo ra'iisul wasaaraha waxaan nahay gabdhihii markii xilka lagu qabsaday banaanbaxa aan kala joogsiga lahayn qaaday ee xildhibaanada jumhuriyadda Soomaaliya ku amray nin aan sawirkiisa wadan wadada ma mari karo waxaan nahay gabdhihii hadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markii la keenay tagay maxaan ku dhilay abaartu ay ku dhifato dalka xukuumaduna ay diiday baarlamaankuna ay diiday inay ansixiyaan gabdhihii tagay garas baalay ee dadka dhibaataysan kor dhex istaagay ee yiri ra'iisul wasaaraha waa in la ansixiyaa waayo dadkan la rabo inuu u shaqeeyo adeegana waxa fool xumo ah oo aan wax la qaadan kara ahayn toban madaxweynaha dalkan soo maray ma jirin madaxweynayaal wasiiradahoodu la saftaan gabdhaha dhinac ama gabdhaha la isku diro oo dhibaatada maanta taal ay taalaato maxay ku dhacday mudane madaxweyne annagoo ah gabdhihii Soomaaliyeed ee taagan hoteelka ilinkiisa in hoteelka nala ka xirto in nala diido in la yiraahdo Soomaali ma tihidin inaan annaguna ciidamada garabkooda taaganahay inaanu afgooya tagnay ee dhaqsiila markaan ka soo soconay oo ciidamada ka nimi nala ku xabadeeyay maadaan ogayn mudane madaxweyne inaanu annagu ciidanka Soomaaliyeed maalin walba garab taaganahay ee la halgamayno miyaada ogayn mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed maanta adaa ugu sarreysid wasiiradda adiga uu soo doortay ra'iisul wasaarahaagu ma baabi'in karta dumarka Soomaaliyeed 18 gobol gabar ka timi ma jirto gabar laga keenay ma jirto waa gabdho guryaha laga keenay waa gabdho xaafadaha laga soo kacayay annaga kula hadal siinayna gudoomiyayaasha gabdhaha Soomaaliyeed ee 18 gobol degan haweenka Soomaaliyeed haweenka qaranka Soomaaliyeed meel kasta oo joogno degmo gobol tuulo casumad waxaan nahay haweenka qaranka Soomaaliya aniga hadda waxaan ahay goboladan ka imid waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balanbal ee Galmudug indhahana kama qarsan doono waxaan u imid dhibaatada ka jirta meesha oo casumada ka jirta oo ay ka wado hal gabara iyo xulufo ay wadato gabadha iyo xulufada ay wadataa dalka uma taliyaan dadkana uma taliyaan waxay ka mid yihiin inta loo taliyo waxay ka mid yihiin inta xilka loo dhiibtay waxay ka mid yihiin inta dalka iyo dadka u shaqeeya la yiri waxay ka mid yihiin inta danta Soomaaliyeed la rabo inay ilaaliyaan duunyada Soomaaliyeed ilaaliyaan dakhliga Soomaaliyeed ilaaliyaan haddii aynan ahayn oo aanay ilaalinayn dalka inay burburiyaan dooni mayno mana ka yeelayno gabagabada bananbaxan ayaa waxa hadallo ka jeediyay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Axmed Gaballe taa oo sheegtay in shirka wasaaradda garwadeenku ay ka tahay uu yahay mid aan sharci ahayn shirka masiirka qaranka haweenka Soomaaliyeed looga tashanayo oo ay ka maqan yihiin ururka haweenka qaranka oo ay ka maqan yihiin ururka haweenka maamul goboleedyada Soomaaliya waxaan arkaynaa inuu yahay mid ku socda cadaalad darro mid ku socda xaqiraad mid ku socda ku tumashada xuquuqda haweenka Soomaaliyeed mid ka turjumaya sida haweenka Soomaaliyeed ay ugu dulman yihiin dalka Soomaaliya say ugu dulman yihiin mid ka turjumaya waa awood sheegasho loo awood sheeganayo haweenka Soomaaliyeed inay dantooda iyo maslaxadooda iyo xuquuqdooda ay ka taliyaan waa maxay sharciga
iyo talada la leeyahay waa laga talinayaa oo dadkii u idmanaa oo anigu aan ka mid ahay oo ahay guddoomiye ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed aanan ka soo dhaweysnayn oo aan la ii ogolayn oo albaabka aan la iga furaynin ujeedada ka dambaysa maxay tahay shirka loo diiday gabdhaha ururka haweenka qaranka oo qarannimada Soomaaliya dhidibada u aasay oo loo dilay oo habeen iyo maalin u taagnaa shirka aan laga soo dhaweynaynin oo wasiiradda haweenku ay qabatay ujeedada laga leeyahay waa iska cadda Abdi Asari Guule Bulsha TV Muqdisho